wadanka walaalkanaga ee Suudaan oo ay dhibaatada soo gaartay fatahaada maalmahan ku socotay waxaan leenahay Soomaaliya way idin garab taagan tahay golaha wasiiradana waxay baaq u dirayaan dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo Soomaali weyntaba in si gurmad ah loogu fidiyo wadanka saaxiibkana annaga na soo taageer markaan u baahneen in gacan laga siiyo waqtigan ay aad u dhibeysan yihiin waxa kale oo laga hadlay muwaadiniinta Suudaaniiska ah ee wadankan jooga iyo sidii loo taageeri lahaa naftooda oo ay jirto ku dhawaad taqaatiir iyo joogan macallimiin wadankan jooga si solidarity-geena aan ugu muujino golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen in laga tirtiro wixii deemana lagu leeyahay oo xagga deganaanshaha ah iyo lacagta ay bixiyaan khidmada ah oo kaarka ay ku qaataan oo shaqaaleynta ah kadibna wasaaradda arrimaha dibadda ay u dabargeli doonto si ay loogu saxiixto Soomaaliya iyo Suudaan u kala saxiixdaan MOU ama is-afgarad maadaama annagana ay ku dhawaad 7,000 oo Soomaali ay naga joogto Suudaan ayagana tixgelintaas inaan siino si ay ayagana tixgelintaas noo siiyaan dhalinyarada meesha wax ka barata iyo qoysaska Soomaaliyeed meesha deganba marka taasna waxa golaha wasiirada isku raaceen inay tahay mid ugu fiican oo la sameyn karo in wadanka Suudaan taxsiin loo diro lana taageero shaqaalahooda wadankan jooga si ay loogu dhiirigeliyo inay wadankan walaalahooda ah ay u soo shaqo tagaan oo nolol shaqeeyaan